hadda wax kale loo baahna yaad rabtaa inaad sixirto hebel xagee jooga meel heblaayo 10ka number ee mobilka oo isticmaalo ma garanaysaa over the phone telefonka loo soo marnaya sixirka hello madalamiya maxaad oranaysaa ha sixirka waxay ku xirayaan kelimada ha ereyga ha ama English ku dheh ama Carabi ku dheh ama Soomaali ku dheh waxa doonto ku dheh ma madaala marka lagu yiraahdo ha ba oranaysaa qab wala diminaya taasi waa qaab kale waxa jira inta lagu soo waco lagu afuufayo wixii lagu akhrinayo wixii aan ku sheegayo oo tabacu ma tatlu shayaatiinta wararka oo arrimaha ay kulay ilaahay isagu ogyahay oo shayaatiintu isticmaal bareen waxba lagu afuufaya markiiba dhigta laga galiya sixirkii jirka u gudbaya ha Facebook la soo diri karaa email baa la soo diri karaa Snapchat sawir baa la soo diri karaa clip sawir lagu soo diray ama qoraal lagu soo diray baa lagu leeyahay fiiri akhri waxa kan waad furaysaa furista afurtay sixirka indhihi baa ku qaadaysaa sida dhagta ugu qaaday sidoo kale bal hadda waxa ma dhihi karaa waxyaabaha qaar ku hadda inta dadka daaweyn aan ku arko waxa kamid ahaa in lagu diri karo filmaanto kale geemamka ciyaalka kale addicted very addicted ku noqdaan kale to waxa sixirka qasab ahaan jiray timaha qofka la sixrayo cidiyihi qofka mesela dharkii uu ku dhididay kabihiisi waxyaabo noocaas in la keeno oo sixirka lagu sameeyo jinka la adeegsanayo marka la dirayo wuxuu iska ahaan jiray kuwa iska marka fiirso iyaga laftikooda casriga la socdo iska ribaadiya wax badan aan ogeyn hadda technology-ga socdo darteed oo maadaama bini'aadamku advanced technology gaaray oo technology horumartay jinkiina waxa is leedahay sidoo kale bini'aadamka dusan ka horeyninba waa la socdaa marka hadda technology-ga laga faa'iideystaa qaabka loo sameeyo sixirka iyo qaabka loo gudbiyo labadaba sidii hore ka duwan yihiin waxyaabo waxa jira la yiraahdo basiira oo aan aad u adeegsado isticmaalo waan u imaan doona insha Allah taala jinkii caadi loo arkayo aragti caadi la isticmaalayo oo qofkii uu caadi u arkayo hadday noqoto sixir hadday noqoto il hadday noqoto jin kullu oo soo socda insha Allah taala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا المقعيق ومحمد وحان قبتانا وحال لهذا رقية شرعية أولا مجعل ميديا هنا كمقوم لكن سبب جراء وخصبي إذا ما أنت أي تهي مال يعني إيشا يسحر كيجينكو أي آد وتربطين ayadoo jinki uu gaaray advanced yani uu ka faa'iideysanay advanced technology iyo jawaabtii quraanka uu ka baxshay Allah subhanahu wa ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq oo Ilaahi subhanahu wa ta'ala uu tilmaamayo inay tahay yani ayadan uu Ilaahi tilmaamayo azza wa jalla inuu muujin doono aayadkiisa inuu naga tusi doono adduunka daafihiisa dacaladiisa iyo nafteena sidoo kale arintaas oo aan iyadana u arkay waqtigeedii inay joogto xaqiiq ahaan ma aha cabsi gelin ma aha bal waxaan u arkaa fadhiga inuu yahay wacyi gelin marka haddaan u soo noqdo ruqya waa qaab diimeed oo loo daaweeyo xanuunada khaas ahaan marka la yiraahdo waxa kuwa la xiriira isha sixirka iyo jinka isha iyo jinka iyo sixirku saddexduba waa jin oo macna saddexdaba markay dib ka geysanayaan waxa caawiyo kaalmeeyo waa jinka yani shaqada qabanayaan ba kala duwan laakiin xaga macnaha waxay yihiin waa ka siman yihiin waa jinku lugood waa sida bini aadamka oo kale taxi driver-ki waa bini aadam police-ki waa bini aadam makaanigi mesela waa bini aadam dhakhtarki kulligood waa bini aadam laakiin uniformka oo kala duwan iyo shaqada qabanayaan asalkoodan waxay ka wada yimaadaan abuna aadam alayhi salaam saasoo kale isha iyo sixirka iyo jinku kulligood waa jin laakiin shaqada qabanayaan ba kala duwan mesela hadii sixir la yiraahdo kaleeto sixirku inta badan waa ciidan la soo diray oo shaqo loo soo diray qabtaan wixii adiga markaa loogu tagay in lagu sameeyo sixiroolihii amraya jinkii inay sameeyaan waa dad amar la soo siiyay ciidan ah tababar haysta uniform xiran kala dambeeya group ah ishu
وقف أما اللبو أما سدح أنت كفيرسي بحكاسو قاري إيش هو لما مد وحلي هذا حسد وقف نلاشو كوديدا أما وحكة مصيري مد مصير كنت مع دوي هذا أدي شيء يسو مدنا وحلي هذا عين وحكة مع دا أنت بدن قف كجعل يقف عادي أهوى كتم هذا يعني ممكن قف كفير شو مثلا وحاسد حوك واركي قفكي وحو دريميا عريري جستيسا ولبسانيو وحي نمعادا الهي كسيسay كسي عريري markuu qofku dareemo negative energy ba ka soo baxaya ishaas qofka u socota ba shayaadiintu raacaya yani jin independent ah banaanka jooga ishi ba markay ishi ku soo aado isho qaabkeeda ilaahay subhanahu wa ta'ala oo garanaysa oo sameeysan tahay markay ishi ku soo aado ba jinkiina soo raacaya ishii oo kugu dhacday jin group oo la socdo shayaadiina kula soo galaya inta badanna waa nooca ugu xun waxay noqotaa sixir oo wax meesha ay Soomaalidu ka keentay ishu sixir bay noqotaa yani waa group wada socda oo hadhowtiina network samaysanaya ay ku wada shaqeeyaan oo dhibkii lagu geysto marna waa il caadi ah ishii baa soo baxaysa oo form in leh oo ku soo galaysa xanuunkii iyo dhibkii iyo shidadii iyo calaamadii waa ka siman yihiin wixii baa dareemaysa laakiin cidna lama socoto markaa بصيرة وأركتي وفيشن وأركتي إلهي سبحانه وتعالى أوصيه قفكي قرآن كلو أخرني حنو سلام ما ها قفكي أخرني قفكي يو أركي كرام إشي سعركي جنكي ولا الله بصيرة واستعمالها داود إيضا ما داود وقرآنك أصل كداود كل جيد وقرآنك بصيرة نحن استعمالها يعني مالي سعركي فوقا أن كسو صارو إن جنكي عراري قريكا عراري لغو عيشو لغو سو قبطو إن ما أركتي إشي بحثتي سيدو كلاتو مثلا sometimes واحد على قفك قرآن كل لغو أخرنا يقولك جيفك للا جوغا فردق إني بس كباشالي أن جنكي وحالقا فردق على قرآن كل أخرنا يقولك جيفك قفك إنو كسوغيان وحالقا قفك مقالة أسوغ جو قرآن تلغو أخرنا مقالة كلاتو أكي ماذا إنو كسوغيان بقرقيسي ساسا مركو استعمالها انت بغفرو in la arko muhiimada ku jirta waxaad fahmaysaa markaad ogaato ma laga maarmi karaa oo aragti la'aan macnaha ma lagu ekaan karaa markaad fahanto baad fahmi kartaa tana tusaale ahaan hadda waxaan arkay yani qaabka ay sixirka u sameeyaan ama qaabka ishu u socoto markaad si fiican u fahanto ba waxaad fahmaysaa muhiimada ku jirta marka in la arko quraankii marka xabaar waday maalinkii xigtay bay waxay tagtay meel buur weyn oo gudaheeda marka la galo furniture aad u qurux badan kuraas sariiro armaajooyin aduun u yaalaan nin baa ku jira buurta marka waliba basementigeeda hoose la aado nin baa fadhiya nin kasaan oo kale miis hor yaala turba u yaala turku dhigdhigaya wuxuu faashanaya meesha soo marin xubin raba inuu ogaado ninkii markuu iyada arkay buu intuu naxay gariir bilaabay inuu gacmaha iyo jirka iyo wax dhan luxo أنا هو عادي أحسن عادي لو يقان بني آدم إنه إنسجا يعني إنسجا بني آدم كأيه إنه سنجني أركب بالي إنه أركب بالي لو يقانه جني وأنا أنا أركب صدر أنا جاي مركي إنسجا عادي أصاب قلق وأركب السجل لفت الكيس بانح شو كل عاي عد كينا قف كست أقولك كجر عد كيس عادي ومقلة بورتنا ما بور قولك تالا وبور مجالك لو كتالا جنك ليه مركب واحد الله عد كي عادي ومقلة سعبرو دغيسو الله رب العالمين isagana ka tusay meesha ku jirta halkaan waxa uu imid waa sixirkan gabadha masaakiinta sixirkeeda una soo saarto hadaa diido waa dhimanaysa soo saar waa istaagay ana waxaan tusaalaha qisada kugu soo qaatay inaad fahanto muhiimada ku jirta in wax la arko faa'iidada ku jirta uu istaagay armaajo furo armaajada wuxuu ka soo saaray dahab marka soo dahabkana sixirkeeda lagu sameeyay gabadha iga qaado idhaaf سكيدا وقريلي وحسيل كوا وحبا كما قنك تحل بو اوغين وا استاغي جرنجرده بو كور usoo furay madaalo banaanka usoo baxay meel buu oday wuxuu ka soo saaray maqaar geel iyo verbisil marka soo xir beerkan bisil la habeenkii intaysan seexan baan intaan googooyo cashada ugu daraa waa subaxa aan rabo inaan mission fuliyo oo attack aan sameeyo habeenkii baan sii diyaar garow waa sii sameeyaa dagaalkayga sii diyaarsha wuxuu yiri marka aan subaxii la gaarana maqaarka geela waxaan ku fidiyaa guriga irdiisa haday ku istaagto ama ka tilaabsato
lugaheeda nabro cusub baa ka soo baxaya haddii caalamka dhakhaatiirta joogto dhan isku yimaadaan ma celin karaan. saddex qaab bay inta badan xoogooda u muuqdaa. mid waa bini aadanka caadiga shaybkooday leeyihiin waa dad caadi ah, kuwana xoogaa waa ka qaab daran wadada aad u foolfool xun oo cabsi gelin iyo iskee loogu talagalay dadka qofka cabsiya sida kuwa cirfiidka dhahaan oo kaleeto. qaarna waa xayawaanaadka caadiga shimbiraha iyo maaragtay libaaxa iyo masaaska waxaas isku ekaysiya caarada iyo waxyaabo noocaas ayda iyo dhakhtarku wuxuu daaweyn karaa calaamadihii markaa soo baxay oo asalkii uu lahaa sixir ama ilaaman jin. calaamadii markuu daaweeyo haddana problemka soo noqonaya. maalan nabar baa halka iga soo baxay, nabarka dhakhtarku antibiotic intuu sii waa daaweyn karaa. mar allaala markuu daaweeyo problemka haddana soo noqonaya, lianna sooskii meeshuu ka imaanaya problemkii lama xalin weli. laakiin inta in la eg baa wada karta haddaad joojiso problemka waa taaganya. laakiin markii qur'aan iyo la isku daro dawadii dhakhtarka ma kala maarmaan, markaasaa waxaa la helaya xalkii oo buuxa. soo quraankii iyo dawadii dhakhtarkii waxaan ku talin lahaa waliba walaalaha hadda kulay dad badan baan rajeynayaa inay dhageysan doonaan. waxaan kula talinayaa marka ugu horeysa waxa ugu horeeya oo la fiirsho waa dhakhtarka. si marka hore dhakhtarka fiiri xanuunka aad dareemayso, arag hadduu daaweyn karo, dawadii hadduu dhakhtarku ku wareero ama ilaa waxaan ma aqaan meel ka imaanayaan, markaasaad il iyo sixir iyo fiirin kartaa. laakiin haddii caloosha lagaa qabto inaad malayso in ilku hayso wax معجزة أما مشينو خطر أو أنا استعماله أنا داينو أنا يعني وحان قرطو حنونك وحويها مجران وحا تكنيك أنا استعماله قرآنك قرآن كريم كه مثلا هذا وحي سحر أيهين آيات كسحر كمركب مريسو اسبدل بإيمانه. هذا وحي إليهين آيات العين والحسد مركب مريسو أما إيشا أما حسد كعد مريسو اسبدل بإيمانه. الشياطين هديهين aayaadkii shayaadiinta markaad akhri istiraahdo isbedel baa imaanay. si guud markay isugu dardarsadana aayaadka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu dhibaa waxay doontaa ha noqoto nooc doon sixirka ha noqdo. hadiiba sixirba meesha yimaado hada quraan istiraada dhageysa ama salaad ku istiraada qayla imaanaysa waago saasi ahaan jirtay. hadda marka waxa dhacday maadaama ay isbedelayo sixirkii maalin ka dambeeyay cilmigu uu ziyaadayo, waxay sameeyeen sixirkii banaanka lagu sameeyo, jirkaaga lagu sameeyo, jirkaaga banaankiisa lagu sameeyo sixirkii. markay sixirka la sameeyo adiga waxbaad rabtaa inaad samaysid wixii aad islahayd samee oo lagu diidanaa sixirka darteed loo sameeyey. maalan dukaan oo kale aad leedahay, office baad leedahay, office-kii baad rabtaa inaad shaqo u aado subax kasta. marka office-kii damacday inaad aado, sixirkii banaanka lagu sameeyey ee banaanka joogay jinkiisii iyo cuqadihiisii wuxuu dhan banaanka yaaleen baa waxay sameynayaan mar allaala markaad dukaanka soo aadaa lagu galayaa. waxay xayndaab waxay ku sameeyaan kaliya meel gaar ah. meesha waxaan ahayn ma gaarayso, ma dareemaysid marka noloshaada. masaajidka tagaysaa, baqarad akhrinaysaa, masaajidka tagaysaa, quraan badan ba akhrinaysaa, meel kastoo khayraad xaadiraysaa, wax dhiba ma dareemaysid. aadaan kasta maqlaysaa, wax dhibaato ma dareemaysid. xaramkii ilaahay baa tagaysaa azza wa jalla, waxba ma dareemaysid. inta badan markii meelaha khayrka la isugu yimaado qofku uu dhibsadaa markii wax ku jiraan. marka inta midna waxba ma dareemaysid. laakiin wixii aad dareemaysaa marka meeshii ama lagu diidanaa ama lagula rabay ama isbedelka hada familka oo kala raba in la burburiyo, gurigaaga markaad soo galaysaa isbedel kugu dhacaya. banaanka marka u baxda habibaata. marka sixirka maadaama noocaas uu hadda yani noqday casriga noocaas oo noqday, waxaa dhib ah furfuristiisii. laana quraan markuu akhriyo wax ma qabtid, mana ogaan karana wax qabtid. adigana dhib baa ii sheeganaysaa. family issue ha noqoto, financial issue ha noqoto, waxbarashada dhinaca ha noqoto, shaqada ha noqoto, culays iyo dhib baad ii sheegtay, mana dareemi karo. taasaa marka waxaa ka dhashay waxa la yiraahdo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay quraankiisa ku leeyahay yani inma sana'u kaydu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata. sixirole intuu doon cilmigiisa hal ekaado, aqoonto doon ha lahaado, arfan sir kasta ha gaarsiisana cilmigiisu meeshuu doon ha joogo, ilaahay wuxuu leeyahay ma liibaanay ana sixirkiisa baabi'inay. الله أنتو سبحانه وتعالى سودك أدومودي ما سودح جليه. مركب محي كنت سيسا إلهي علمي وكوبا بإنه يسحر لها عن عصر كستو وجرسيسين هي وحكى صار إحسارة يا مسلمينتي دينتي وككينيا يعني ضدك مسلمين تدحوا وككينيا صادرت بمركب وحى جرت وحلي على بصيرة أما فيشن يعني سجى إسكال إلها يعني هوشن فركيبا فريتان كي أنا وحي لا صعد قارن مجران أود قارن الله مجرته حتى ضدك الله الله ولا يا
dadka hadda walaalaha aan la hadlaya xataa ma aha macna inaan u sheegin aan ka idinka يعني أقوان دير هذا اللي هي لكن وحن ربائنا فهمتان وحن إذن شرحه وحوي رب العالمين سبحانه وتعالى أود سأود لو نجا إن سنجرين بشارة القرآن كأنه شيء إليه الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قرآن كأسود جيروح وهنون وياه عافمات شفاء ورحمة حريص عافمات وياه ذاتك مؤمنين تا أرنت أن يبلغ كاس إلهي سبحانه وتعالى إنه فينا يوحي الله هذا لياب كلا أركنه أي كم تهاي مركب سنة وجهري كذي ذاتك القرآن وآخر مركب في شيء وحي قارين كو لبو سدح عفر مركب تري يصير بقول قف مركب الآفين ذاتك عادي وأركين oo ishooda ku arkay jinki caadi uu ka qabanaya oo sixirkii meeshu ku jiray ka soo saaray oo yaani waxyaabaha hadda insha Allah taala mustaqbalka hadda sii joogo waxyaabaha waxa weeye aan jeclaan lahaa inaan bandhig ku sameeyo oo dadkii bartuso awoodda Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu Ilaahay nasiiyay horta wax quraanka iyo ducada ka sareeya ma jirto waxay yiraahdaan Soomaalidu meel madax ka sareeyso la salaxa ma leh quraan iyo duco wax dhaafsiisan oo aan isticmaala ma jiraan intaas oo dhaxaya وكلام الله سبحانه وتعالى iyo duca bas waxa jira marka procedure yar la maro qofka marka procedure kaas la mariyo hagitaankii iyo caawintii iyo qaabkii procedure kaas markaad marto waxa imaanaysa qof kasta oo Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyay yaani dibkaan uu ku imtixaanay ama sahir ha noqoto ama il ha noqoto oo Allah isku xira Allahna bariyo procedure kana mara inuu arko haddii aad qorigaas inta darbiga ku aadiso qofkii darbiga gadaashiisa tuugiyo darbiga gadaashiisa ku jira xabadda darbiga ku dhufato ka waran hadaad tiraahdo xabadda wax ma tarto qorigu wax ma tara been baan loo sheegay maxaa dhacay dawaaba kana awaan ridaya waxna ma dhacayaan macnaheedu maaha inuu qorigu wax tarayni ee barrier baa jira darbi baa idin dhaxay adiga iyo meesha aad rabtay inaad gaarsiisid sidoo kale quraanku waa sida hubkaas oo kale shaki kuma jiro inta in la oga shakiyo kuma jiro inuu quraanku wax baabi'inayo waxna dilayo laakiin oo yaani sixirkan ka wada uu baabi'inayo laakiin waxa jirta barrier haduu meesha yimaado oo xirfad barteen iyagu inay fogaadaan ah adiguna qalbigaaga miskiin uu yahay oo ku xiran yahay qolka kaliya iyaguna ay wadan kala jiraan waa inaad fahantaa in adiguna aad heli karto Ilaahay awoodda ku siiyay subhanahu wa ta'ala banaanka u bixin salahan markay ma sha Allah oo kale ay amaanayaan ma sha Allah waa Ilaahay baa doonay ereygaas hada u fiirsato macna ahaan waxaad fahmaysaa ereyga aniga marka hadda ku eeleysanayo isha adiga aan ku eeleysanayo bay divertigareynaysaa waxa u dareysaa Allah subhanahu wa ta'ala مثلا marka tiraahdo riyo nin maal badan baa tahay waxaanu maal iyo waxaanu xoolo ah aqliga ku keentay waxa laga yaabaa ishi adiga aad aniga isoo yaani eeleysatay aniga baabi'iso xoolihiina baabi'iso laakiin marka tiraahdo niyo xoolahaas ay ku heshay ma sha Allah xoolahan cajiibka ah tirada badan ma sha Allahna aan raaciso waxaad macnaha dhahaysaa oo naftaadii u sheegaysa qalbigaagii xoolahan inay ka imaanayaan Ilaahay agtiisa cid bixinaysa inay tahay Allah subhanahu wa ta'ala saadarteed Ilaahay il wax kama tarto ishii waxay toos u aadaysaa xoolaha aniga midihi Ilaah baa keenay Ilaahay baa aadaysaa Ilaahayna subhanahu wa ta'ala il wax kama tarto daaswa marka Allah subhanahu wa ta'ala aayadii kale yaana ayadana soo xasuustay oo tilmaamay Allah subhanahu wa ta'ala wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna yani hatamanina fadliga dhexdiina ah ragana Ilaahay dheeraad buu siiyay dumarkana dheeraad buu siiyay was'alu Allah min fadli Ilaahay weydiiso marka fadli dheeraad raadinayso macnaheedu walaalka ku mashquul lahayd ودور الله يسوي حكوه شيء أنا يقعد بان تاي وحن سيكون عضي نرجع من باتاي مدانا تاي مدك هو حسديه كرا نمبر 1 وقفك صلاة يعني أرين مهم سلام كده حديثة ولما النبي وقارتي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قفك كتجا من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر صلاة المام أو كما قال رسول الله قفك صلاة كتجا أو كس وقتجا وقف قالوا بدين النبي محمد كبح صلى الله عليه وسلم عليه وحن أرى لها صلاة أو عليس كل يسوقيو وحل كمد وحيبها الله هرتليو وحيبها لو داوينا لبضبا أي ديسك إلهي نقول مكان سبحانه وتعالى محل ويقانا مركو قف كله أي ديسك ما هدلا وحمد له لكن وحو بابئيا سيستم immune system كجيركاga difaaca unugyada cascas ee jirkaagu baabi'inaya markuu isagu baabi'iyo hargabkii baa ku dilaya marka waxa ku dilaya waa hargabkii
tiibishadii waxyaabihii caadiga ah ee xanuunada caadiga ee loogu talagalay inta kugu dhacaan in haddana ka caafimaado kuwii baa ku dilaya lianna immune systemkaaga wuxuu yahay zero baaba'san saa darteed shayaadiintu marka isha iyo sixirka qofka ay u yimaadaan waxa ugu horeeyo ay ataagarayaan sida aidiska immune systemka qofka u baaba'ashada iyaguna waxay ataagarayaan salaada marka ugu horeyso il kugu dhacdo ama sixir ku yimaado waxa ugu horeeyo aad ka doonto waxa way caajiska qoreyska wahsiga salaadii ku dhibaysa salaada kugu adkaata salaada subax oo aad kici karin saasoo kale shayaadiintu waxay isku dayayaan inay salaadaada baabi'iyaan si sixirka iyo ishii kaaga faa'iideystaan oo ku dilaan marka waxaan dhihi lahaa walaalaha insha Allah tacaala salaadaha ilaawina xoogaaga salaada isku gee number 1 number 2 waxaan is dhihi karaa suurada la yiraahdo suuratul baqara dadka quraanka yaqaana waxa kula talinayaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi suuratul baqara akhduha baraka wa tarkuha hasara wala yastati'u al-batala yani qaadashadeeda barakay leedahay ka tagisteedana waxay leedahay murugo iyo hasara sixroolahana ma wakari karaan suuratul baqara qof caadaysteena wax yalaan waxa la yiraahdo adkaarta guud ahaan adkaarta nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi difaac badan bay keentaa salaad subax hore aroorta oo la akhriyo adkaarta iyo habeenkii la akhriyo laakiin si fudud waxa walaalaha uga tagaya dadka waliba ay ku culus tahay inay wax akhriyaan ama adkaarta akhristaan waxa oran lahaa kelimada astaghfirullah ya la hawla wala quwwata illa billah labadaba waa laba arrimood aad muhiim ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay astaghfirullah qofkii joogtay man lazima astaghfirullah جعله الله له من كل ضيق من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب او كما قال رسول الله قفكي استغفر الله سيغا جوجتيا oo si continuous ma hal mar dhahayo laba mar iyo kun iyo iska joojiyo ma qofka joogta u dhaw yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi ciriiri kasta ilaahay exit buu sameeyay albaab ka baxo murugo kasta iyo walwal kasta ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sameeyay exit iyo albaab ka baxo meel kasto يعني wax kasto uu rabana meel uusan ka filayn ba ilaahay ka siiya subhanahu wa ta'ala sidoo kale nabigu wuxuu yiri la hawla wala quwwata illa billah kalimadaas wuxuu yiri 99 cudur bay daawo u tahay waa xadiis saxiixa 99 cudur bay daawo u tahay cudurka ugu yar listiga 99 ka cudur mataqa wuxuu yahay waa depression kuna maanta cudurrada ugu weyn ku jira wadamada aynu hadda joogno dadkan isdilaya tareenka isku dhigay dadka dhibaatada geysan kuwa wax dilaya arkayso dhan xoogoodu waa dad isku buuqay depression ku dhacay insha Allah taala walaalaha wa salaamaya kulligood qof kasto oo daawada waxaan Allah uga baryaa subhanahu wa taala haduu xanuunsanaa ilaahay xanuunka ka qaado haduu walwalsanaa ilaahay uu niyada u dhiso subhanahu wa taala qalbiga qabujiyo waxaan dadka ugu bishaareeyaa leeyahay kalaamullah wa xisana quraan ilaahay uu subhanahu wa taala walaw anna qur'ana suyirat bihi aljibal aw qut'at bihi al-ard aw kullama bihi al-maut haduu jiro quraan buuraha tagsiya dhulka dilaaciya kama noqon lahaa awooda quraankaasi uu leeyahay ilaahay na tusaya quraan waxa wadana resistance ilaahay wax iska caabin kara wax iska celin kara aysan jirin sixir kasta oo jirana Allah subhanahu wa taala qadaray oo soo yani imtixaanka ka dhigay baana wuxuu qadaray in quraanku uu baabi'iyo insha Allah taala عذر كستو يماده وهيسنا دوديس إن شاء الله تعالى وحلا وراها هم وجانين كتاب القرآن كنا نيجي وهيسنا إن شاء الله تعالى الله لا يسكت حتى ملك كستو أدون كجوتنا الله حسوسنا إن شاء الله تعالى رب العالمين نوال فليه